wararka Yemen waa dagaal waa macluul waa dhibaato haddaba ma isweydiisay ismarwaaga aan dhammaan ee Yemen ka socda sidee buu dalkan taariikhda ilbaxnimada hodanka leh halkan ku soo gaaray dalka Yemen waxa ku hardamaya 3 mashruuc oo waaweyn oo mid waliba uu wato dano aragti iyo saaxiibo u gaara ma ahan dagaal laba dhinaca ee waa loolan 3 geesooda oo mid waliba uu doonayo inuu qoro mustaqbalka Yemen awoodda ugu weyn ee xilligan ka jirta Yemen waa dhaqdhaqaaqa ansaarullaahi waan u naqaano xuutiyiinta ee uu hogaamiyo Cabdulmaalik al-Xuuti kooxdan waxay ka soo jeedaa gobolka Sacda ee waqooyiga dalka Yemen waxayna u hana qaadeen sidii dhaqdhaqaaq diimeed oo raba in ay soo nooleeyaan firqada saydiga ee Shiicada oo qarniyo ka talin jirtay waqooyiga Yemen maanta hadafkoodu waa in ay dhisaan dawlad islaami ah oo xiriir dhow la leh dalka Iiraan waxay si adag uga soo horjeedaan waxay ugu yeereen duulaanka shisheeye gaar ahaan Mareykanka Israa'iil iyo isbahaysiga Carbeed ee maanta gundaha iskula jira tan iyo markii ay qabsadeen caasimadda Sana'a sanadkii 2014 xuutiyiintu waxay dhiseen maamul adag oo ka shaqeeya deegaanada ay gacanta ku hayaan halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Yemen waxay leeyihiin awood military iyo hub culus sida gantaallo iyo diyaarado daroonisa kuwaas oo la aaminsan yahay inay ka heleen dalka Iiraan waxay leeyihiin awood ay ku saameeyaan gobolka oo dhan laakiin waa kuwa aan haysan aqoonsi caalami ah mashruuca labaad waa kan dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay oo hadda uu wakiil ka yahay golaha hoggaanka madaxtooyada golaha waxaa la sameeyay Abriil 2022 wuxuu ahaa isku day ay Sacuudiga Imaaraadku ay ku mideynayaan kooxaha ka soo horjeeda xuutiyiinta waxaana hogaamiyay Rashid al-Caliimi xubnaha golahan ku jira waa kuwa leh ajandayaal iska soo horjeeda hadafka warqadda ugu qoran ee sida dhabta golaha uga turjumaya waa in la soo celiyo dawladdii sharciga ahayd la ilaaliyo midnimada Yemen lagana adkaado xuutiyiinta waxay haystaan sharciyad caalami ah waxaana haatan taageera Sacuudiga oo martigeliya intooda badan mashruucani wuxuu qarka u saaran yahay burbur tan iyo markii la dhisayna waxa hareeyay khilaaf gudaha ah awoodda dhabta ee dhulka uu maamulana waa mid aad u kooban dhacdooyinkii dabayaaqadii 2015 ayaa si cad u kashifay awood yaraanta golahan kadib markii golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta ee STC oo xubin ka ah BLC-da uu awood ku qabsaday gobolada istiraatiijiga ah ee koonfurta sida Hadramaut iyo Al-Mahra oo ah 2 gobol oo ku fadhiya ku dhawaad kala bar dhulka Yemen waxa iska hor yimid xulufadii isku dhinaca ahayd Sacuudiga ayaana cambaariyay tilaabadaas oo qadcas u arka in gooni u goosatada uu Imaaraadku taageero ay xadkiisa qabsadaan wuxuuna Sacuudiga duqeyn la beegsaday markab gooni u goosatada u siday shixnad hub ah oo taagnaa dekada Makala Imaaraadkana ka socday dhanka kale madaxweyne al-Caliimi wuxuu ku dhawaaqay inuu meesha ka saaray heshiiskii difaaca Imaaraadka isagoona amray in Imaaraadku dalku isaga baxaan mashruuca saddexaad waa kan gooni u goosadka ee horboodaya golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta STC kooxdan la aasaasay 2017 hadafkoodu waa cad yahay waa in la soo celiyo madax banaanida koonfurta Yemen oo dal gaar ahayd intii u dhaxaysay 1967 ilaa 1990 waxaa hogaamiyay Aydruus al-Zubaydi oo sidoo kale ah madaxweyne ku-xigeenka golaha hogaaminta madaxtooyada ee doonaya inuu ka goosto al-Zubaydi wuxuu ku dhawaaqay in muddo 2 sano ah koonfurta lagaga qabanayo afti dadweyne oo dadku ay ku dooranayaan in koonfurta dawlad madax banaan tahay qorshahaasna ay si degdeg ah u gudgali doonaan haddii Sacuudigu weerarku sii wado kooxdan waxaa si weyn u taageeray Imaaraadka waxayna dabayaaqadii 2025 muujiyeen awoodooda dhabta ah kadib markii ay la wareegeen gobolada muhiimka ah ee koonfurta Yemen waxay tilaabadani keentay iska horimaad dhexmara iyaga iyo Sacuudiga waxay si buuxda u xakameeyeen magaalada Cadan iyo inta badan gobolada xeebta ee koonfurta waxay u ololeeyaan in koonfurta Yemen ay ka goosato waqooyiga iyaga oo ku doodaya inay fashilantay midnimadii 1990 waxa kaliya ee midnimadaasi laga dhaxlayna ay tahay in koonfurta la dhaco lana gumaysto saddexdan awoodood ee siyaasadda Yemen isku haya waxaa dhabarka ka taagan awoodda bariga dhexe ku loolama Iiraan waa mid si weyn u taageerta xuutiyiinta si ay saameyn ugu yeelato marinbiyoodka Baabul Mandab Sacuudiga waxaa ka go'an inuu xasiliyo xadkiisa wuxuuna taageeraa dawladda rasmiga ah ee Yemen halka Imaaraadku uu xooga saaro maalgelinta iyo hubaynta awoodda koonfureed ee gooni u goosadka isagoo xaqiijinaya danihiisa ku wajahan dekadaha iyo marinada ganacsi ee gobolka